dadka Soomaaliyeed ha foojignaadaan indhooda kor nin nacayb ma aha nin jeclaysi ma aha laakiin waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego malafyadoodii hore dib ha loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas'uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego dadka waxa kale ka mid ah kuwa shalay Soomaalidu inay ku kalsoonaatay taladii u dhiibatay ee taladii meel cidla u cararay قال هبلا إديدن أوجد أجنبي هبلا يسود ديد أوجد ترى أنت تقول كودة أيضا شعب جديد كتاجين وأي جرب تاجين وتاجين ردود أي جن حلك أنت تقول كده كعرري ما أنت هذا نصان مخف عصمي ضد عصمي صار نقدر نتكسر ضد كسومالي ولا ريال عاطفة معها نعيب يجعل معها تلاذو معلم بي كلها بونتاي أد وغفير سو قفك أد محوها هاي مسؤولية ده يدلك أد كأمنيست سياسته وحل خادم سياسته خيانة معها سياسته بين معها سياسته بلان كبح معها ميل أدون كجرتنا ملها أدون كنا كمجرته دين الإسلام كنا مقبو قف انتاد بين أشيكت أدون قبحنا وعيبوي رقم كاس رقم في عن معها محايا لي مدحوينه وحل الرواء إنه نقضوا good example أو لو قطيدو waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyay mooshin dawlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan ognahay waa caado xumo waxyaabaha dawladdan 16 sano la dhaqaaqi weyday waxa kamid ah isbedel aan macno lahayn dawlad kasta oo timaada oo aad doorataan waxay uga tagtaa meeshan iyadoo howlo qabyo ka ah waxay uga tagtaa 3 ra'iis wasaare iyo sanad walba in dawlad cusub la keeno marka hal sano see wax loogu qabanaya marka waxa loo baahan yahay in arintaasi wax badan laga bedelo dhaqanka ugu xun oo siyaasadeena ku jira wuxuu yahay qoos in la qoosto oo la yiraahdo meesha wax laga ma qaban karo xaaladan way adag tahay shacabkan dawlad ma rabaan xaqiiq ma aha problemku shacabka ma aha problemku golaha shacabka ma aha problemku waa madaxda la doorto weeye oo dadka qoos gaarsiiya waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee kaliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun weey xildhibaanadu iyaga keena madaxda iyaga doortay iyaga dhalay madaxweynaha ma aha kaliya marka loo baahdo marka codka laga rabo kaliya ma aha waxa laga rabaa tala laga rabaa waxa laga rabaa inay dawladdaasi ay wax ka dhisaan waxaynu bedelaynaa in amnigeena cid kale ay nooga noqoto mas'uul macnaheedu waxa weeye wiilasheena dhalinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan mas'uuliyadda amniga waxaan aaminsanahay waa arkay markaan prime minister-ka ahaa waxay u baahan yihiin marka la siiyo inay hanan karaan oo ay dagaalyahano yihiin oo geesiin yihiin markii xuquuqdooda meel loo saaro waxaan bedelaynaa oo kale haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu ilaah yiraahdo in dawladdu awoodeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin dadkaad u baahnayd
arrinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo